السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال halkaad naga daawanaysaan waa janaalka saaxiibo ku soo dhawaada muuqaalkeena cusub ee maanta waxa markaa ila fadhiya saaxiibkay Cabdiqaadir Dajiye soo dhaw aad iyo aad Haruun waa dhawahay sidoo kale asxaabtu waa dhawahay saashada bila aan sheegnaba oo bilow ahayd wax walba oo aan markaasi aan ugu talagalnay asxaabteena ay ku qanci karaan inaan soo gudbino sheekooyinkii balanqaadka ahaa waan wadnaa maanta waa dhacdhac waa kala tuureynaa waxyaabaha ugu xiisaha badan kubadda cagta kaga hadli doonaa sidoo kale waxaan ka hadlaynaa ii sheega arrimaha markaas taagan oo xiisaha badan kulamaha haday jiraan oo la ciyaaray iyo waxyaabahaas oo dhan marka aan ka hadli doonaa adwaakaas maxallada Paul Pogba halle guday ma ku dayna hada sheeka beelay ahaataas saaki markaan soo kacaybo Pogba qaranka ka fariistaa maqashmo adiga waa lagu yaacayaa maqal waa la guday adiga ma lagu yaacin laakiin uu ka fariisan karaa le waa karaa waa lagu wadaa waa macquul inuu ka fariisto kadib markii uu madaxweynaha Faransiiska aflagaadiyay diinta Islaam markay meeshas maraysa markii waxaan dhihi karnaa wargeysa macnaha bariiskooda waa la kala shaqeysanaa waliba waxaa la dhahay sheekadan wargeyska dasana daabacay laakiin wuxuu ka soo xiganayaa bariga dhaxana waa Arabta markay saas tahay marka waxaan rasmi waa markii lagu dhahay waa markii uu asiga hadlo waa marka xulkiisa uu hadlo waa marka uu kooxda ka tirsan yahay hadasho wakiilkiisa doo hadlo oo kala rasmi u qaadan karnaa laakiin hadda waa la yiri la ku jirnaa waa la yiraa wakiilkiisa ma hadlin macalinkiisa qaranka ma hadlin macalinkiisa kooxda Man United ma hadlin Manchester warbixin kama soo saarin xulkii bayaan kama soo saarin isagii ma hadlin bariisa bulshada kuma hadlin marka Pogba qarankiisu ka tirsan yahay laakiin arrimahaas waa arrimo ka soo yeeray bariga dhexe maanta kubadda cagta waxa ugu hadal heen badan arinta Pogba wargeysada oo dhan ay daabacayaan haddana gelinka dambe maanta waxyaabo badan soo baxay oo leeyahay kaanta ku raacay xidigii muslimiinta ahaa ee Faransiiska Pogba inuu maaragtay ka baxo ciyaaraha qarankiisa ama dalkiisa horta waxaan hadii run yihiin Pogba la sheeg horta waxa ka jiro Pogba hadii uu talaabadan bilaabay waxaan horta nabar afreysay naxdin ma laha gaal ma kaan xina ibal mugta Pogba hadoo bilaabay in saaxiibadii ay qaar kamid soo raacayaan waa la isku ogaa Pogba wuxuu ka xanaaqay sida hadda wargeysada ay sheegayaan inkastoo wali la xaqiijin inuu ka fariisanayo xulka qaranka laakiin waxyaabaha ka xanaajiyay warbixinta lagu sheegay waxa kamid ah aflagaadadii toos ah islaamka uu aflagaadiyay madaxweynaha Faransiiska uu aflagaadiyay aflagaadadaas waxay ka timid kadib markii macalinkii lagu yaacay macnaha lagu kala baxay waa la dilno macalina la sharbaha la saartay sababta loo dilana si kala ma ah nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam uu wax ka sheegay sawirkiisa la soo sameeyay lagu yiri ardayda la tusaayay kuwa muslimiinta waxa la yiri gabaha horta fasalkaana arday muslimiin ana ku adigato afar gacantii taagteen banaankii iga baxa banaankaas iga bax inta kale oo gaalada heeda lagu soo reebtaa wax loo macalinka maalintaas kadib waa lagu yaacay waa la dilay macnaha waa la dilaha waa ahaad madaxweynaha ka hadla markuu wuxuu yiri maxal siihay biladalisi macalinkii dhinto Soomaa bilada meel loo dhigano bilada macnaha artist ugu fiican farshaxamiista ugu fiican aad u fiican macnaha gaalada waa dhiirigelinaya waxaas islaamkan wuxuu ku tilmaamay argagixiyaal waxa madaxweynaha soo hadlay waa ka tacsiyeynayna waxa falkaas geystay argagixisada caalamiga ah islaamka horeyna waxa meesha loo xaalad adag ku jiray Mas'uud Ozil aad iyo aad وحتى أنت أرسنال أي كقرب تليسك xidigaheeda Premier League ama uu ciyaari doona Europe League العيارات كان لقريبة مسعود أوزيل سووا الحرير إنه كارلي أرنتي دين الإسلام كقصيصة أنا وكجه اللي ذاتك الودي باتينا مسلمين تودن كشينا أديات حدا بقبه كسوجر مرك أديات بقبه كصحيح سوى حان ربنا وحان يرتوي ذكله يا صهر لما كادنا اللي
waa iska weli warbixino oo rasmi ma hayno laakiin waxa leeyahay waa iska la yiri ha N'Golo Kante iyo weliba weli mujalladaha waaweyn kama arkin laakiin waxa leeyahay N'Golo Kante isaguna ku raacay in Faransiiska oo kaga baxo oo haduu Pogba fariisto isagana uu ka daba fariisto maadaama arinta loo dagaalamayo ay tahay qadiyad diini ah sababtoo aniga وشي ولا كيف لفته ما يدين هذا هذا واحد كشكته وعاد ستوس أتاك وقصة سيدا كود دفاع سيكون دفاع ماليدا سيكون دفاع عنه ما دفاع كذي نو مركب ماليدا أنا اللي جن مركب فادي جنها ما ولا يسيب نوع هاي سابق ولا يسيب نوع هاي أنا سيكون دفاع الدفاع هذا أنا كود دفاع أنا دينتي ذاك شيء ها معقول ما مش ما قاعد نكرت ما قاعد marka xulka qaranka Faransiiska waxa ku jiraan xidigo oo weyn oo muslimiin oo Afrikaan ah qaarkood laga yaabo inay ku dhasheen qaarkoodna way qaateen hadda Pogba kale uu qaatay diin islaamka uu qaatay wixii dhalinyarnimo oo madaxan la soo gudubsaday iyo la fiiqfiiqday iyo dhagal xirtay iyo waxaas waa gaal ku dhex jirka xaq iska dhig waa gaal ku dhex jirka dad ka badan iyo bii ka badan waa ku qaadan xaq iska dhig laakiin kan waxaan markanahay diiniga ah inuu haysto waa iska cimraystaa xadkiisu iska aadaa waan si muuqaal ahaan u aragnay intaasaan naga badan ku aaminay Allah barakeeyana laan Allah barakeeyo hadii uu go'aansado inuu macnaha qaato inuu ilaandaas ama maaliyadaas iska dhigo haleena hore u socdo oo socodmeena hore u dhaqaaqan lana sababtoo qadiyadu uu dagaalamo waa qadiyad macnaha sax ah ugu dambeeyna macnaha waxay noqonaysaa waana loo sheegay in muslim iyo gaal isku diriri doon warka hadda waa iska cadiya macnaha soo baxaya hadda tartiib ka bilaawno meel kasta ka soo bilaaban doonto meel kasta ka soo bilaaban Haruno horta xulka qaranka Faransiiska xidiga muslimiin ku jiraan kuwa ku jireen waa laga dhigaa ku dhamaalid waxa la yiraahdaa nooma ciyaartaan oo cirkaas maray hadda Karim Benzema weeraryahan lamid ah ka soo saar maxaa la Faransiiska ومسلمنimada lagu haysta waxba hado kufsi waxa loo haysta amal usan haysan lahayn loo gambanaano waxaan isleeyahay ninkaas waa la soo celin lahaa waa loo gambado koolka lagu dhigeysto waa laga dhigay Samir Nasri waa laga dhigay hada Pogba iyo wixii leen Mas'uud Ozil oo iska dhigay Pogba hada wuxuu leeyahay maxay iga dhigtaan baan dhigaay dad kale soo raacana Kante soo galay meesha xataa dad badan iimaanaya walaal Kante wuxuu leeyahay walaalkii ma ka haraan وراعة وشي ولا الكل يقول دمي كوميت كذا أنا وياه لا برملي حكم لا يدقى ولا يدقى حتى أنت قابل أنا شرف أنا شرف أنا بحر مركب فرانسيسكا حدقي سعر كاس مراي وحواي أرنتوضو مال الحمرة بريق الحمرة والسكول مسقرنا مركب بقبي أرميس وحي كسر بحي يدي أي صحته يدي كلامنا وسوء إيمان دونا لكن يعني كلام أنا برامج ذي كلام كهل دونا دجوا مركنا وردك دجال سو ساريا ninkii Pogba ayaa soo hadlay hadda la warkiisayeen waa dhigmay dhahamis ma dhignay dhahe ma dhigin fake news way warkaas dasan oo daabacay bariga dhaxan oo kasoo wax shaqaan kula ana mala ana mar rabo sheegay kana la dhihi karaa marka waa sax war sax sababtoo ninka asaas okay ha isagii hadlay marka bariga dhex carabta la sheekadan ka imaatay wargeyska dasan waa soo xigtay waa lagu celiyay macna dasan oo sawir ka soo qaaday bariis bulshada soo dhigay Pogba marka hadda waxaan dhigi karnaa Pogba wuu beeniyay waan war aan jirin maaliyadda Faransiiska inuu dhigay sabab la xiriira in madaxweynaha dalkaas Faransiiska uu weerar ku qaaday diinta islaamka marka hadda si cad uu beeniyay inuusan macnaha arintaas war feeg inuu yahay aan wax ka jirin marka waxaan dhigi karnaa Pogba wuu beeniyay دجوا sidoo kale ciyaartooyda Faransiiska ee kale qof kale oo ka hadlayna arrintaas kuma jiro iyadoo war dhawaan ay soo baxayeen sida Kanto kale ku raaci doona iyo sheekooyin kale ay soo baxayeen wax ka jira mal waxa soo dhan waa gubata fake news okay war aan waxba ka jirin kana qaadan karnaa okay